بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبيباتي وأنا سلامة يا دمانتين أدونك ميلو لي باك جوجتان. بعد سلامنا وأنا سود وين حين الله سود هذا channel كينا مرو ستار كوكين. بارك الله فيكم. أنا عافمات خبنا الحمد لله دائما وأبدا. أذيك إنه حارجين أنا عافمات خبتان وفيديو عن عافمات خب أكو داون دونتان بإذن الله الكريم. أنت حنوسا الله عافية. أنت دمت إله سبحانه وتعالى هاون حارستو اللهم آمين يا ربي. وأديم هاد علنا يا ولا الله دمانتين هذه آذى أمهات سنتين الله ينبرك يا سيدا channel كأو حرنتهين كومنتيد قروح بدن دعادي دير جلنتي سوجر أنت بعيوس ودراسة وأديك كم هاد علنا يا بارك الله فيكم. ما أنت حسميسان إن شاء الله wax tar badan يعني حقيقة حنبارسن oo dad badan oo walaalo in ay ka faa'iideen ay ka soo duceeyeen ya marka maalin dhaweedna waa ma sha Allah yani cidi daawata fiidiyoogii khatarta ahaa ee qadadii ma sha Allah tabaarak raxmaan faraal iska cunaya sameynayna macaanteeda yani waatu xumuska inoogu jira oo qayb ka ahaa waaw ma sha Allah tabaarak raxmaan فمركا حمص كاسميسانينا حمص Soomaali waxa lagu dhahaa shumburo ya marka digirtaas sameysanaynaa digirta nafaqo badan ay haysataa gabdho waliba gabdhaha horta waaw gabdho badan xataa feedback ka soo celiyeen hadda koor maraa soo geliye cajiib waaye marka dhigiini ama hiya insha Allah si fiican u dhageysta xumusta waa taasaasay u taala Soomaali waxa lagu dhahaa shumburo ma fahanteen Englishna waa chickpeas فمركا soo gadato ayadoo fresh yani way adagtahay aad u adagtahay waqti badan ay ka cunay ina kariso waxa wanaagsan waxa sameynaa dhaqsi fiican marka isaga dhaqdo biyo la dhigay hadda maanta oo kale maalin ay tahay biyo la dhigay biyo karkaraya la dhig bari biyahaas ka daadi si fiican u nadiifi dabka saar marka dabka saarto baking soda waa taqaanana rajaynaya baking soda wax yar ku dar oo aad u yar hadda ka badinin waxay ka caawinaysaa inuu dhaqso ku karo ma garata marka hada pressure cooker haysatana ka si fiican digsiyadaas aad u fiican oo pressure cooker-ka hada taqaano waa yani qaabka loo isticmaalo badanaa dadka qaar ka cabsado uu qarxaayo ku dhahayaan yees hada si qaldan u isticmaasho ama dibka inta iska saarta iska tagto uu qarxi karaa jikada dhan ka haleena marka hada digsigaas haysata ku karsatani waaw ma sha Allah tabaarak raxmaan yani dhaqso ku kareysa marka bacaa ku xiranaysa markay ku karto tartiibtaada biyaha ka daadiso talaagada gashanaysa hilibiyada ku karsan kartaa digaaga ku karsan kartaa maraqyada ku karsan kartaa saahada aniga u sameeyay xumusta u sameey kartaa aan dariiqadan waa jeclay adikan inaan ka heshaan rajaynaya dad badan aan feedback soo celiyeen hadda koor maraa soo geliye marka waa ka saahe waxtarkeeda taabanayna si maxay ahaydee walaalaha ku baraarugsaneen ee ugu baraarugaan waa wax tar badan leh maxay ahayd dareen la'aan ay ugu dhacday iyo caada saan noqotay iyo hormoon qalqala dhacay waxaas dhan ma dhacayaan xaqiiqatan hadda yani waxa cunaysa garanayso marka afaarahaas waxyaabo lagu kordhiyo number 1 ay ka tahay cilmigan xishood ma laha hada si wanaagsan looga hadlaayo ma garateen marka xumusta waxay aad ugu fiican tahay lafaha lafa xanuun haysato lafa ku xanuunayaan dhabarka kala goosida qasab ma wixii ina haysato difaaci ku sii tahay lafa u fiican tahay lafa adkaysa murqaha u fiican tahay kala goosida u fiican tahay kaliyaha u fiican tahay dhagxaanta ku sameysma yani ma garatee sidoo kale xataa way jijibinaysaa lagu leeyahay laakiin Allah a'lam waxa kale u fiican tahay kaadi heesta dhagxaanta ku sameysmo kale waxa u fiican tahay maxay ahaydee wadnaha shaqadiisa way wanaajisaa sare u qaadaa in maxay ahaydee wadna istaago kale stroke yani degdeg kugu soo boodo kale waxyaabaha oo ka hortaga waaye wareega dhiiga way wanaajisaa magarataan dhiiga yani shaqadiisa sidoo kale waxay jirka ka ilaalisaa kansarka noocyadiisa qaar sida kansarka oo ku dhaco qowloonka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu marid intuu haayna Allah ka caafiyo dadka cholesterolka qaba aad ugu fiican tahay digirtaan cholesterolka xun hoose u dhigtaa kan maxay ahayd fiicanna way ku wanaajinaysaa waa cholesterol fiicana jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu khalqay anaga dhan haysana xabiibaati sidoo kale waxay u fiican tahay dadka oo sonkorta qabo ayadana u fiican tahay skinka u fiican tahay yani maqaarka timaha u fiican tahay waxay ku siinaysaa awood badan ma garatay fircooni sidoo kale waxay hoos u dhigtaa maxay ahayd
dhiikarka u fiican tahay dadka qaba rheumatismka dadka qaba ayagana way u fiican tahay yani wax laga hadli karaa ma aha xabiibaati ka waramahay waxaasa oo nafaqay waxaasoo waxtar ah ka buuxo anagana waxaa waaye shaqadeena maamaho brisi basta la rabnaa sidoo kale caloosha u fiican tahay caloosha way ku jilcinaysaa mar waliba waxayna dhahay calooshiin inay jilcanta oo xamaamka ay gashaan muhiim jiddan waaye sidoo kale waxay u fiican tahay ii sheegay maxay ahayd difaaca jirka ee sare u qaadaa waxyaabaha difaaca jirka sare u qaadana muhiim jiddan waaye waxay ka hortagtaa kansarka naasaha ku dhaco sidoo kale waxay u fiican tahay dareenka rag iyo dumarba sare u qaadaa waxay u fiican tahay hormooniska waxay u fiican tahay xubinta taranka gabdhaha oo qaleelka ah dad badan aan ku faa'iiday yani meeshaas qaleelka ahaa dariiqadan markay u sameysteen ee noloshooda ku dareen cuntadooda ku cuneen gabdho badan ka soo duceeyay xaqiiqatan ma garateen marka gabdhaha oo xubinta taranka qaleelka ka ah qaleelkaas waxyaabo badan ah keenay hormoonkaaga qalqal ku imaada ma garateen marka gabdhahaas inii dardaarmaya insha Allah burooyinka gabdhaha heesto nooca laal nooci doonta ha ahaato u fiicantaa gabdhaha ugxaanta daciifka ka ugxaana iga dhamaatay abaayaal waa inii fiicantaa insha Allah cuntooyinkiina ku darsada shalay cunto khatar soo geliyo ugxaanta lagu kobciyo intii daawata marka maxaa u baahanahay xumusta koob weyn mugiisa isticmaalaya xabad toon in yar oo milix 3 malqaacadood ama qaado oo plain yogurt iyo liin dhanaan haystaa insha Allah casiir liin dhanaan hal xabo liin dhanaan inta waxa ku haystaa taxiina waa taqaanana rajeynaya sisin la shiido waa diyaar waa supermarketyada taala Soomaali ma taala yaa liidhiinaya reer Soomaali community-diina waa arkaa waxaan Soomaali ma yaala dhaysin Soomaali waxa oodin malahan last year marka taga ana soo yaabo wallahi Soomaali waa taala taxiina supermarketyada lagu gadaa Kenya ka horeysiin Soomaali ma taqaanaan Kenya ka horeysa xaqiiqatan marka taga ana soo yaabe ya marka way taala Soomaali hay'ad supermarket inuu ahaa rajeyna supermarket kaas aan ku soo arkay marka taasa waa shiideena digirta xumusta diyaar waaye ani hadda tan isticmaalay mida ani kariye ma aha mida oo qascadaha ku jirto oo diyaarka ahayd waa ma garateen laakiin inta kariye talaagada gashta waqti xaadirkaas iimayso oolin tan inta supermarket soo qabsaday iska sameeyste waxa ku dareenaa taxiinadii marka taxiinada waa sisin la shiido aad loo ridqay ma garateen aad u ridqan tahay waxa ku daray 2 malqaacadood oo taxiinadii biyo ma ku darin intaas ku soo shiido waa taas ma sha Allah tabaarak raxmaan yaani icun waa alaabtan caadi ma waxaas oo gaduudka fargeedada inta galiye maxaa la dhahaa paprikada just ziina le waay ma garateen yaani sharaxaad le waay asaas u saaray fargeedada ya iska fiicanta qurxan cunto zaytuun yara ku dare waa wax kala waay alaabta wax kala waay gabdho ka faa'iideysta insha Allah caafimaadkiina gacanta ku jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo tala saarta خير إبركة إني رجينا يا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه